gaari nooca raaxada ah oo laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa ayaa la soo dhigay maqaayadda Blue Sky oo u dhaxaysa wadada xiriirisa Daljirka Dahsoon iyo sidoo kale Xawataako. dad goob joogayaal ahaa ayaa waxa ay sheegeen in gaariga uu qarxi waayay isla markaana dadkii goobta ka agdhowaa ay isaga carareen sidaasna hay'adaha ammaanka lagu wargeliyay. afayeenka maamul gobolka Banaadir Cabdifataax Xalane oo halka warbaahinta kula hadlay ayaa waxa uu sheegay in ciidanka Niisa ay qaraxa gaariga ka fureen isla markaana ay suurtagal weeday inuu gaarigu qarxo. sidaan warka ku hayno gaariga inay qarxiyaan bay rabeen uu qarxi waayay markaas waxa la arkay qaac yar oo gaariga ka dhax qaacaya markii laga kala fogaadayna amniga ayaa loo yeeray eedamina baarista ee nabasugida loo yeeray forfor markay yimaadeen oo la baneeyay goobtana si tartiib ah ayaa qaraxii goobta looga furay wadarateen qaraxii inta laga furo bay gaarigii ay ka haysteen oo dubadiiba gaarigii meesha laga kaxeeyay marka si walba iyagu noo jalaafeeyaan si walba iyagu isku dayn anaga noo dhibaateeyaan geesiyaal qarabaajo. sidoo kale afayeenka ayaa waxa uu sheegay in hay'adaha ammaanka ee Soomaaliya ay amar ku bixiyeen in aan gaari la dhigi karin inta u dhaxaysa tiyaatarka qaranka iyo sidoo kale Daljirka Dahsoon. waxaan rabaa inaan idhaahdo maqaaxiyadan ku yaala goobtan oo ah goob aad u saxmad badan oo baabuurta la dhigo waxaan rabaa inaan idhaahdo baabuur lama dhigi karo meeshan laga soo bilaabo tiyaatarka ilaa iyo godka Jilico waxaan rabaa inaan idhaahdo dhaxdan lama ogola in baabuur la dhigo waa amar hay'adaha ammaanka ka yimid taasna in sida loo fuliyaan rabaa oo maqaayiduhu aysan ogolaanin in baabuur lagu baakimo laamigan dhaxdiisa. midda labaad waxaan rabaa inaad ilaalidaan dadka idin imanaya gawaaridooda daqiiqadaha ay adeeganayaan inaad ilaalisaanna waa la idin amrayaa.